بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولودا هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan wax yaraan ka tilmaami doonahay macsharka khiyaamo, waayo khiyaamaha meel aad iyo aad markaa u dhibaato badan waayo, sida nebiga sala allahu calayhi wasalam suu ka sheekeeyey. waayo nebiga aad iyo aad ayuu khiyaamahaas ugu sheekeeyey. waayo maalin waxaa dhacday caaisha radia allahu tacaala canha, allah ka raali noqdo, nebiga ayay su-aal weydiisay. nebigan caaisha waxay tidhi: yaa rasuul allah, rasuulkii allow, khiyaamaha dadkoo dhan waa lisku keenaa? nebigana wuxuu dhahay: haa caaishay, dadkoo dhan waa lisku wada keenaa ayagoo qaaqaawan ah oo curaad ah. caaisha waxay tidhi: yaa rasuul allah, midka kale ma sii fiirinaya miyaa? waayo axadka kale ma fiirinaya miyaa? maku mashquulaya miyaa? jawaabta uu nabiga bixii fiiri sala allahu calayhi wasalam. waayo nebiga asigana wuxuu dhahay: caaishay, qof isfiirinaya ma laha, qof waliba maalinta camalkiisa ayaa u horseedaayo, qofka kale ku mashquulayo ma arkaysid. qof waliba maalinta camalkiisa ayuu la kurboonaa, sida ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. maalinta naf wax kuma tari torto, qabiilkuusoo gurmadi wax kuuma qaban koraan, maal adiga aad haysatid wax kuuma qaban koraan, wax adiga ku anfacayo khiyaamaha waa adi